السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي وأستاذ عبد الباسط حسن نور وكما عليه رأيكس كاس واد مركز تكالو سعتان يوتيوب جنالك آبا حسابتا يوليبا فيسبوك بيجكا آبا حسابتا كواس واد كبرتان حساب وليبا سي أونلاين عشر كان waxaan ka tirsanyahay koorskeeni la magac baxay barashada maadada xisaabta oo aynu u soo gaabinay bamax marka nagu soo biir oo subscribe saarto channel sidoo kale facebook page-keena soo booqo oo nagu soo biir oo like saar marka ku soo dhawaada cashirkeena aadka iyo aadka u xiisaha badnaa cashirkan waa cashirkii 26aad ee kooraskii bamax gaar ahaan qaybtiisa aynu ugu magac darnay basic lessons plus primary lessons cashiro asaasi ah iyo weliba cashiro aad iyo aad muhiim ah oo under secondary oo secondary course yani waxay muhiimadeedu tahay ardayga inuu secondary markuu gaaro inuu form 1 iyo form 2 form 3 form 4 ana casharada basic inuu ka dhisan yahay muhiimadeedu ay tahay marka insha Allah cashirkeena sida dadka soo artay waxaan ku saabsan percentage ama boqolley marka waxaan u qortay our topic also the jigsaw ku saabsan yahay percentage ama boqolley percentage maxay caawinaysaa marka first waxaan u qortaa one example example intaas ama examples ka qaad example waqti dheer oo qaadana ma qori karo laakiin si automatic ah editing qore find waxaad soo heshaa 20% 20% of $200 يعني 20% imise ka tahay يعني $200 imise boqolkiiba 20 ka once again aan marku soo ilaadana find 20% of waxaad soo heshaa boqolkiiba 20 200 waxaa ka raadinaynaa 20% imise ka يعني cashirkan aad u muhiim u yahay gaar ahaan ganacsatada ayuu anfacaya dadka oo shirkadaha ka dhexe yani tusaalahaan shirkada la furay laba qof aa dukaan camal furatay ama farmashi laba qof marka lacag isku darsadeen markii lacagta isku darsadeen waxay ku shigeen yani faa'iido soo baxda si loo kala qaybsado raasamaha yani nin lacag badan u dhiibtay nin lacag yar u dhiibtay tusaalahaan waxaa lagu heshiiyey inuu qaato nin boqolkiiba 80 faa'iido inuu meesha ka soo bax qaato kan kalena boqolkiiba 20 oo qaato wax kan waa heshiis yani ninka kan jaamacada iska dhigtaa tusaalahaan subaxdii dhan ma joogo galabtii ma joogo habeenkii soo imaanaa shaqada ninkaana subaxdii iyo habeenkii u shaqeynaa marka isku qiimo ma naqanaa faa'iido 50 kala bari qaadana ma jirto heshiis weey waxaa leeyahay ay jaamacada iska dhigo galabtii hadana iska soo dhidhil ama shaqo kale iska laas habeen bis ay imaanaysaa waxaan ku heshiinaynaa inaa boqolkiiba 20 aan ku sii mushaarka ama mushaar aan dhihine yani faa'iido soo baxday oo dukaankaas laga faa'iiday yani boqolkiiba 20 aan leeyahay boqolkiiba 80 ana iskale bishii koowaad markii la joogo waxaa la faa'iiday $200 la faa'iiday see loo kala qaybsanaa ninkan 100 maal kala siinaa ninkan 50 maal siinaa ninkan 150 maal siinaa si ku ogaan cashirkan weyn waa very important hadda cashir iiso af Soomaali inta af Soomaali sax iido dhageysto yani nin dhahayo Ali iyo waliba nin dhahayo Xuseen ayaa waxay ku shirkoobeen waxa ay furteen iska dhig dukaan waxayna ku heshiin inay Xuseen uu qaato boqolkiiba 20 Xuseen 20% inuu qaato calina uu qaato
80% ay ku heshiin xuseen inuu qaato 20% boqolkiiba 20 faa'iido soo baxay inuu qaato calina uu qaato boqolkiiba 80 iyaga heshiis ay dhex maray waay kadib markii heshaas ay isku heshiiyeen bisha koowaad dukaanka waxaa laga faa'iiday $200 cali lacagtoo qaadanaa la iska rabaa xuseenna hee lacagtoo qaadanaa la iska rabaa waa very important lesson waa aaminsanaani waxaan u qortaa our solution inta waxaan ka dhigi doonaa sida caadano ee exercise waa very important cashka example waxaan ku raay yani ninkan 20% jooga ninkan meeqa ah 80% this first waxaa usoo bedelaysaa fraction kabacdi waxaa ku dhufanaysaa yani inta lacagta ay ahayd oo la faa'iiday meeqa la faa'iiday $200 la faa'iiday marka tan aan fraction usoo bedelno waxay noqonaysaa hadii fraction usoo bedelno 20/100 kusii yar yaad arabto 20 u qaybi kan kala kala bixi 1/5 aa soo baxayso waxaad ku dhufanaysaa u qora yani lacagta ay meeqa ahayd lacagta soo faa'iideen ahayd 200 markaas ibi marka isku sii dhuf marka 1/5 times 200 inta divided by 5 waxaa soo bixi doonto 1 inta divided by 5 waxaa soo bixi doonto 40 aan ku dhufo waa $40 ninkii oo la dhahayo xuseen $40 lacagtaas ku leeyahay lacagtaas wuxuu ku leeyahay $40 cali lacagtiisuna waxaa kusoo saari kartaa inaan 200 ahayd ninka 40 oo qaata waxaa soo haray $160 oo kan 40% ma sorry great waan qaldamay $40 aa ula jeeda يعني example waxaa qoraad find 20% of $200 $200 20 boqolkii imisaa ka marka wax kale ma samee 20% kan ayaan waxaa usoo bedelay fractions cashirka hore aa kusoo qaadanay cashirkii laashanaad inuu aan rajeynay waxaa usoo qaybi jirnay boqol u qaybi jirnay boqolkii u qaybiyay boqolka markaa u qaybiyay waa isku sii yaray kabacdi waxaa ku dhuftay faa'iido la faa'iido oo ah 200 kadib waxay soo baxday 40 haddii kale adoo isku jiran xataa waa habeen kartaa waa dhigi kartaa 20/100 times 200 saa inay fududaa laga yaabaa mareysa inta boqol u qayb waa hal inta boqol u qayb waa 20 ku dhufo waa 40 ninka xuseen aad soo heshay calina waxaa laga rabaa boqolkiiba 80 oo leeyahay meeqo qaana hadda haddii aan fikirno waa soo saari karnaa waxaan dhigi karnaa 200 ee faa'iideed cali xuseen wuxuu qaatay $40 cali wuxuu qaadana 200 hadii ka jira 40 waxaa soo baxay $160 cali askari laakiin se kusoo saaraysaa idin waa ada wax kaloo loo baahan yahay sooma true for solutionka cali waxaan leenahay cali meeqo oo ku heshiiyey inuu qaato 80% waxaa soo bedelaysaa fraction kadib waxaa ku dhufanaysaa imisa ayay faa'iideen waxay faa'iideen $200 ay faa'iideen waa lacag bay ka dhurkeen kuwaas easiest way aad samayn kartaa tahay eber isla bix waxaa dhigi kartaa 100 u qayb hal 100 u qayb laba deetan ku dhufo $160 useful ina fahantiin ama cashirkan waa useful lesson waa cashir aad iyo aad faa'iido u ah kadibna waxaa ka dhigtaa exercise jawaabtiisa kuma fududaa doontaa insha Allah answers ka way meeshaas hal su'aal le waaye marka ma aanina waqti iska lumin haddii example-ka aan wiilasha kusoo qaadan gabdhaha waa inaan example-ka kusoo qaadana aamino cabdullaahi cali jimcaali oo magac waa dheeraysa waniyo aamino la kusoo qaada aamino iyo canab ayaa waxay isku darsadeen dukaan ayay lacag isku darsadeen markaas waxay ku heshiiyeen inay qaadan doonto aamino boqolkiiba 90 faa'iido kasoo baxday in aamino ay qaadanayso halka canab ay qaadan doonto faa'iido ah
boqolkiiba 10 waxaad soo saartaa yani haddii ay faa'iideen bishii ugu horeysay dukaanka $400 haddii ay faa'iideen aamino imise ayay qaadanaysaa canabne imise ayay qaadanaysaa marka aan idin qoro jawaabta hal mar kale haddii kusoo celin example yani aamino iyo canab ayaa waxay isku darsadeen lacag ama dukaanay isku darsadeen dukaanay furteen ama farmashi ay furteen marka doctoresa weynta aamina cabdullaahi calwa aabaha hooyadiisu doctoresada markay meesha ay joogto yani iidaad meesha kan kala wato kan kalena waa kalkaaliso yani way caawiso aqoon laakiin lacag ay haysatay oo kuwii iiga way isku darsadeen meesha kadib markay isku darsadeen lacagta waxay ku heshiiyeen maadaama aamin ay tahay doctores weyn oo medicine soo diyaarisay inay qaadato faa'iido kasoo baxa 9 canabna ay qaadato 10%. heshiiska wuxuu dhacay inta aan lacagta la isku darsan ka hor aan la saxiixay kadib bishii u horeysay farmashiga waxaa laga faa'iiday at least $400 canab imise ay qaadanaysaa iyo aaminane imise ay qaadanayaan marka jawaabta idin qorayaa jawaabta waxay noqon doontaa insha allah maama aamino waxay qaadan doontaa insha allah $360 $360 halka canab ay ka qaadan doonto $40 heshiiskaasaas ay soomaa yani ma aamino inay qaadato 90% faa'iido soo baxa 90% aamina qaadanaysa canabna waxay qaadanaysay 10%. waxaan ku rajeynayaa cashirka inaad fahantay insha allah وارميسي وناك كهذا أستاذ عبد الباسط حسن نقيكيس وإذن الله سبحانه وتعالى وعودي سنينا من فضلك سجننا من قليو ما حريست والدين تينا الله سبحانه وتعالى وعودي سنينا إن أنا غني ودوم دي سون وناكسن الله سبحانه وتعالى وعودي سنينا مسلمين تا مالك استوجوا ودوك إنه كنا بتقليو إنه ودمنا دبعتك جرتو ومسلمين تا ديبك oo ku dul qaado oo ay ugu wareysay Rohingyans dadka Rohingya muslimiinta Myanmar ku nool ama Burma oo silsilada loo galay hadirtaan Allah subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanayna wadamada muslimiinta sida Syria Yemen Soomaaliya Nigeria wadamadaas oo dhan inuu amaan oo ka dhigo Allah subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanaya cadow islaamka inay jawaan إن شاء الله مركو أستاذك وإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته haddii aad ka heshay cashirkan like saar sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay janaalkeena subscribe ku samey si aad u hesho cashiro dambe oo xiiso leh